qaadan karaa ama tusaale loo qaadan karaa dadka ugu horeeya oo islaaya manihin adduunyadu way iswadaleysay adduunyada dadka ugu waaweyn hadda ugu xoog badan sida Mareykanka oo kale way islaayeen sanooyin dhan baa waxa socday dagaaladaas waxay ahaayeen qaar noqon kara xaq u dirir oo midabta koorka lagu la dagaalayo oo dimuqraadiyad lagu raadinayo oo dadku inay sinaadaan lagu raadinayo oo dadka madow xuquuqdooda lagu raadinayo oo dadkii hunuudda ahaa ee dalka loogu imaaday oo la bahdelay xuquuqdooda lagu soo celinayo iyo dad aaminsan ama qabaan in dadkii la haystayna la haysto adoonsigiina la wado dadka oo maaragtay murqumaalka ah culayska iyo dhibaatada lagu hayana in ay sii socoto labada halgan oo socday sanooyin far badan buu socday waxa adkaaday cadaaladii iyo xaqii waa adkaaday moogta inkastoo dadka qaarkood aanay u fasirin ruushka laftigiisu wuxuu soo maray dagaal sokeeye uu soo maray Spain baa martay Afrika marka la fiiriyo waxaan u maleynayaa innaga hadda rikoorka haysana laakiin Suudaan oo 30 sano iyo ka badan ba hadda maaragtay dagaal sokeeye ku jirtay Nigeria gashay apartheidkii baa jira oo maaragtay Koonfur Afrika marka waxa weeyaan halgan joogta oo nololeed hal abuur joogta oo nololeed xeerar cusub oo dhalanayo yaa waxa ka dhalanaya nolosha socodkeeda uu ka dhalanaa su'aasha kale marka anaga aan isweydiin karno waxa weeyaan haddii anaga aan dad dhaqan iyo xeer iyo nolol wanaagsan iyo diin iyo xeersan aan salka ku hayno maxaan anaga maaragtay ay u dhici weyday inay khilaafkeena u yaraado ana waxay la tahay sababtaas waxa weeyaan Soomaali anaga hadda erayo waxa jirto oo kulay aan ogoleen oo la isticmaalo waxa la dib u heshiisiin baa la moogtay dib u heshiisiin khalad waaye Soomaali dagaalna kuma heshiin nabadna kuma heshiin anagu isdildilayna aragnay dagaalka waa iska socdaa hadduu socdaa laakiin waxa waaye dagaal intii la fadhiistay aan dagaal lama dhihin magarat lamana dhihin intii la fadhiistay aan heshiino oo Soomaali ka imaanay marka waxa waaye dib u heshiisiin wax la dhaho termigu waa khalad sheekada kale oo imaan karta oo xagga hal abuurka ka imaan karto waxa waaye haddaad dhahdo heshiisiin laba qof laba kooxood oo iska hor imaata oo isdiida oo dagaasha waa in ayagu wada hadasho haddaad heshiisiin dhahdo qof saddexaad baa ku jira qofka saddexaad inuu garan karo dadkana waxa isku hayaan lama ogo marka waa in la gaaro heer la isticmaalo hal abuur ah heshiis baa la abuuraa marka heshiis macnaheedu waxa waaye labadii qof ma dhaafsano labadii qof oo dagaashayna ma heshiin marka waxa waaye khilaafka dagaalka waxa waaye gaalka ama qofka shisheeyaha ilaa iyo dhowr iyo 20 waxa la qabtay shir Sanca lagu qabtay Qaahira lagu qabtay Suudaan baa lagu qabtay Ethiopia lagu qabtay Kenya lagu qabtay meelo fara badan oo dunida kamid ah Djibouti lagu qabtay marka waxa weeyaan waxa soo dhan waxa ku jira dad anaga xeerkeena ma yaqaanaan dhaqankeena ma yaqaanaan diinteena ma yaqaanaan waa sheeko waa la imaana waxa jira marka artikelada akhrido oo laga hadlayo nabadeynta iyo waxaas dadka ajnabiga waxay ku leeyihiin dadka isleenayay xabadka is saarayaan way is salaamayaan way is dhunkanayaan ma fahmayaan waa heshiiyeen baa lagu dhahay waxa weeyaan wixii laga heshiin lahaa laga wada hadli lahaa mowduuca lama yaqaano Soomaalida ma wada hadasho marka qofka actorka ah oo saddexaad waxay isku hayaan Soomaalidu ma yaqaan laakiin marka dib u fiiriso Soomaalida marar badan waxa jirta dagaalo u dhaceen oo dadku islaayeen oo dad gabaya ah oo hal abuur leh sida Salaan Carabi oo kale laba qabiil oo waaweyn oo isdagaalayso oo intuu kacay oo ka dhax kacay oo uu gabiyay dagaalka halka lagu joojiyay مثلا uu istaagay maxaa yeelay wuxuu ku hadlayo labada qolo way fahmeen asagiina waa kamid ayaga moogta laakiin hadduu nin gaal intuu imaado uu kaaga sheekeeyo dagaalka ka dhacay Mareykan oo uu ku dabaqo Soomaaliya ama uu mid Faransiiska ka dhacay uu ku dabaqo ama mid Ingiriiska ka dhacay uu ku dabaqo waxay imaanaysa markaa kadib
in aan la garanayn de wixii marka anigu waxay la tahay hadda markaad fiiriso suugaanta Soomaalida oo dagaalka la xiriira waxaa jira buug yar oo aan isku day inaan tarjumo Ali Suule maartay heesuu alifay caruurtaha heesaysa moogta waa marka caruurtu dhibaatada ay kala kulmayso dagaalka aabahood la dilayo hooyadood la dilayo guriga cilla yahay awowgood la dilay maartay nolol ayna haysanin buu ka hadlaa wuxuu ka hadlayaa xaas oo ninkeedii la dilay oo kaligeed caruur ku ah waxa waaye hal abuurada iyo waxyaabaha aan u aqoon jirin oo soo baxeen waxa kamid ah doorka oo qoyska hoggaankiisa waxa la wareegeen dumarka moogta rag waxbay dilaan waxbay dhacaan ayaga isdila laakiin waxyaabaha aan arkay 9 iyo 2 3 4 dumar aan qaad cunayn oo qaad gadaya habeenkii moogta waxay qaadka u gadayaan waxa waa ilmaha in iskool laga bixiyo waxa weeyaan in ilmuhu cunno helaan marka dad fara badan oo Soomaali ah hadda fiir gabadh Soomaali baaburaan burtay moogta marka waxay leedahay walba de waxaan dhagtuna maqal dhaayaheen oo arag waxaan dhagteen maqal dhaayaheen oo arag walba yaa la isku dhigay moogta yani waxa waaye kufsi ma aqoon oo legal ah maxaa la ishaq dad la iska dilo oo dambi ayagu aan gelin xabad la isaga dhufto ma aqoon dad la iska dhaco lama aqoon marka waxa waaye dadka oo dhan oo Soomaalida oo hal abuurka oo anaga aan aqaano gaariye ninka la yiraahdo Xadraawi marka aad fiiriso ama sasaan dagaal ba soo socdo ama dhibaato dhacday ba laga sheekeynaa soo garan hadda waxa jira gabay oo aad u dheer oo u tirinaa ninka la yiraahdo gaariye oo uu leeyahay waa in la iga qoro moogtahay inaan ka hadlay inay Soomaali dhibaato gaari doonto in la islaayay inaan waxba ii harin soo garan marka hal abuurka Soomaaliga uu yaala laakiin bisaylkii lagu fiirin lahaa oo lagu akhrin lahaa ma jira waa maya moogta marka aniga waxay la tahay hal abuur waan haysanaa يعني dadkeennii oo reebaadiyaha oo dhaqanka waxa weeyaan uu jiraa moogta hadda adaaytoro waxaan ka hadlay xeerka Soomaaliga يعني kama liito xeerarka caalamiga hadda ka jira oo maaragtay lagu dhaqmo oo international lawgan iyo waxaan aan naqaano kama dhaco Soomaaliga marka dib u fiiriso xeer kasta oo Soomaali ah xeerarku xeerka Soomaaliga wuxuu noqdaa qaybo wuxuu noqdaa waaxo maqan waaxo markuu noqdo wuxuu noqdaa qodobo markuu noqdo hadana wuxuu noqdaa dhagalay marka waxa waaye article walbo oo Soomaali ah oo xeer Soomaaliyeed waxa uu ku dhimanaa oo ku gowracan yahay mahmaada Soomaaligaana waxa waaye Soomaalidu been ma mahmaado maya Soomaalidu been way sheegtaa laakiin been ma mahmaado waqti marka waxa weeyaan xeer kasta iyo qodob kasta oo aan yeelanin mahmaah sax ma aha marka waxa waaye waxa loo baahan yahay in dib loo noqdo annaga waan haysanaa maxaa la sheegeen waxyaabaha la tabayo oo hal abuurka uu jira laakiin waxa waaye waa casriyeyn waa wax cusub ciyaalkan yaryar oo la soo celiyo oo banaanada laga soo celiyo af Soomaali cusub ay soo gelinayaan dalka ay qofku kula hadlay say wallahi waxa waaye mustaqbalka afku gala waa dynamism cusub taariikh uu xambaarsan yahay Soomaali baa jabtay ma garatay waxa waaye wallahi waa say wallahi marka ciyaalka imaanay diintu waa la weyntahay af Soomaali ma yaqaano laakiin wuxuu cabiraa generation aabahooda iyo hooyadood qaxeen oo ay banaanka aadeen oo caruurtii la soo celiyay oo wataan dhaqankii meesha ay ka imaadeen oo dhaqankooda ku soo noqday oo markaas dynamismka iyo firfircoonida
nolosha ay ku nool yihiin iyo dhaqankooda wax ku daray wax ku kordhiyay waay soo ma garan marka hal abuur wakaas waa koow hal abuurka uu soconaa wuuna horeeyay hadda miis Soomaali maaha miis wuxuu ku imaaday xadaarad banaanka ka timid waay oo anagu aanan lahayn oo aanan isticmaali jirin miisku waa Iran waay moot dariishada waa Iran albaabku waa Carabi marso furdada marka laga hadlayo marsadu waa Carabi awgaran dooyaha markaad fiiriso Malaysia ilaa iyo inaga xeebaheena waa isku magac haday noqoto dakhal haday noqoto saranji haday noqoto naakhuude waxa soo dhan waa isku af ama waa Carabi amba waxa waaye waa Iran ama waa Hindi soo garan roodi waa Hindi garan rasto wadada waa Hindi barasab waa Hindi soo garan raadi waa Latin TV waa Latin waxa soo dhan xadaaradaas iyo dinamigaas iyo noloshaas la socona wax adig ka imaana waxna waxa weeyaan waxaadan haysanin oo dalka soo gala marka waxaad ku fariisinaysaa baahidaada noloshaada marka ana waxay la tahay aan siino su'aalo hadii maaragtay hadii aad qabtaan maaragtay su'aalo يعني inaan ku dhageysto anigu su'aal waxaan qabaa waxyaalaha ka hadlaysa ka yara duwan goboladan hadda aan joogno jubooyinka la isku dhaho wax taariikh hore uga qoray maan arag Allah uu naxariisto oo jaamac baan ku arkay buugiisii qaran jabka meel uu ilaa 2-3 page ilaa 300 sano uu kaga hadlay inaad aqoon badan u leedahay horey baan u maqlay marka way jeclaan lahaa goboladan jubooyinka taariikhoodii asal ahaan waqtiyadii xadaaradoodu soo bilowdeen xeer waamo oo kale xitaa soo ku sawaysmay iyo galti iyo guri bal meelaha xoogaa inaad noo ifiso maadaama dhalinyaro badan meelaha ay joogaan maxamed xasan baa la yiraahdaa cirro ayaa la igu naanaysa maxamed xasan cirro waa qoraa wuxuu ka imaaday Nairobi waa salaamaya professorkii dhamaan marti sharafta waxaan rabaa inaan weydiiyo professorka laba su'aalood su'aasha koowaad waxay ku saabsan tahay Soomaaliga inta badan waxaa jira erayo ani shakhsiyan af Soomaali ahaan u lahay waxaan rabaa inuu igu caawiyo professorka hadii uu aqoon u leeyahay mid koowaad waxa waaye fasal ama semester labadaba ma ahan af Soomaali sax ah waxaa rabaa xilli dugsiyeedka macnaha la qaata cashirada waxaa loo qaybiyaa iskuulka waxaa la lahaa nisfi jaamacadana waxaa la lahaa semester ka labaad waxaa waaye fasal ama galaas labada midna ma lahan kaasna af Soomaali waa u waayay su'aasheeda labaad waxaa waaye maadaama uu professorka yahay aqoon-yahano badan ay nala joogaan waxaa khalkhal badan ka jira manaahijta Soomaaliya ee dhalinyaradu ay wax ku barato ardayga markuu marayo dugsi hoose wuxuu wax ku qaataa Carabi Soomaali dugsi dhaxana wuxuu ku qaataa Carabi dugsi sarena wuxuu ku qaataa English wuxuu soo baxaa arday aan diyaarsanayn oo aan dhanna ku fiicnayn oo khalkhalsan qaab noocee ayaa u mideyn karnaa manhajkeena ama waxbarashada iskuulaadkeena qaabkee ayaan mid oga dhigi karnaa waa mahadsantiin mahadsan tahay maadaama ay gabar tahay meel fog ee ka fogaysa oo waxay leedahay xaqiiq iyo sal aan rabnaa maadaama wax lagu barto Soomaali iyo Carabi iyo English alayleeyahay professor waa lagu haystaa hala soo xirana waa la leeyahay annagana xadkii waa ka gudubnay marka soo dhawaaw ee raalin ahaada بسم الله الرحمن الرحيم horta aad baa u mahadsantihiin haddaan la yara daahiraalaad ahaanaysaan waxaa laga yaabaa khalkhalka iyo quruxda mawta oo meeshu ay leedahay inay leedin mahad celiyeen ilowlay marka waxaan idinku boorinayaa idinku geesinimo gelinayaa in kulamada noocan oo kala ah bandhigyada noocan oo kala inaad qabataan annaga ka faa'iideysanay ana hadda buug badan ma ka gatay meesha
marka waxa weeyaan meeshan anaga laftigeena wax ka baranayna marka aad iyo aad baan idinku boorinaa aadna ugu mahadsantihiin shaqada aad wadaan waxaan rajeynayaa inaad si fiican u wadaan waxaan u maleynayaa walaasheen iyo walaalkeen Ciro laba su'aalood oo runtii culculus oo waliba mustaqbalka Soomaalida iyo annaga jiritaankeena laftigeeda maaragtay aasaas u ah bay soo jeediyaan haddaan ku hormaro midda Ciro taariikhda oo Soomaalida haddii dib loo raaco hadday tolo waxaan ka hadalnay inaan annaga aan ka tirsannahay dadkan loo yaqaano kushitiga markii cilmi afeedka laga hadlayo cilmi afeedka waxaad moodaa in afka Soomaaliga dhalashadiisa horta dhinaca koonfurta oo waliba koonfurta fog u ka dhashay moogta waliba dadka afka si fiican u yaqaano waxaa jira dad la yiraahdo Boni moogta dad Boni la yiraahdo jiraan dadka Boni la yiraahdo zoonkiina hadda Jubbada oo hoose meesha la yiraahdo Joore dad yar oo gaagaaban oo waarsata ku nool dadkaas af Soomaaliga broto Soomaaliga waxa way af ahaan halkaas ku imaaday marka afkaas waxa la qabaa inuu xeebta raacay inuu markaas kor u aaday ilaa iyo waqooyi bari oo Soomaaliya marka kadib uu halka ku nagaaday markuu halka ku nagaaday islaamku inuu imaaday islaamku markuu yimid inay dadkaasi soo xambaareen islaamkii inay haddana hoos soo degeen moogta lahjooyinka Soomaaliga oo hadda laga dhigo inay afaf yihiin laakiin aan af ahayn moogta aan maay iyo waxaas iyo waxa way dad cayn ku dhawaaqa iyo dad aan cayn ku dhawaaqin iyo dad xaq ku dhawaaqa aan ku dhawaaqin iyo waxaas af ma aha moogta afafka adduunyada waxa laga fiiriyaa root-ka erayada moogta erayga asalkiisa hadda aan markaa research sameynay boora ma laga bilaabo ilaa iyo Djibouti dadka ku nool habra wadaagta waxay dhahan dubri wala moogta waama markaa timaado Joore ilaa ayaad ka tagto maxaa la yeeshay Gaaris waxa la dhahaa dubri inta u dhaxaysa dubri male marka markii eray halkan laga isticmaalayo eray kale oo dad Soomaali isticmaalay jiraan wuu tirmay laakiin eraygaas waa eray qadiim oo hoos iska haya moogta marka rootskaas waa la fiirinaa tarkiibta jumlooyinka oo Carabiga dadka yaqaan ficilka iyo faacilka iyo mafcuul bihiga si isugu xigaan baad u fiirinaysaa marka dadka marka kushtiga tarkiibtu waa isku hal erayada asalkooda iyo rootku waa isku hal marka horta afka halkaas laga fiirinaa marka la rabo in la eego markaad eegto markaas dadkaas aan ka hadlayno oo Boni la leeyahay oo afafkaas marka differentiation-kooda lahjadii ugu horeysay oo samaysantay oo xeebaha ka samaysantay waxa la dhahaa dadkan oo qoryoolay degan oo la dhaho jiidada yaa lahjadii ugu horeysay yeelatay moogta marka dadka kale oo lahjooyinka yeesheen lahjada waxa way waa afguri maaha af maaha waa afguri way ama cayn lagu dhawaaqo ama qaaf lagu dhawaaqo ama yaan lagu dhawaaqin marka nadariyaad baa jiraan dadka digil iyo miriflaha caynka iyo xaada iyo qaafka kuma dhawaaqaan jaamacadaha qaarkood waxay qabaan inuu caynka iyo qaafku iyo xaadu ka lumeen laakiin waagi hore ay ku hadli jireen dadkana qaar waxay qabaan in aanu jirin afka Soomaaliga cayn iyo xa iyo qaaf oo afka Carabiga uu soo galiyay erayada ayaga ah oo marka labada nadariyo midda saxda ah mustaqbalka sheegi doona moogta laakiin muhiimadda weyn halka markaan uga baxo Ciro su'aashiisaan u imaanaa waxaan ka soo qaadanaa taariikh dhow islaamka si oo aan ahayn weerar iyo dib buu ku baahay moogta ilaa uu ka tago dhul dheerta Itoobiya moogta Itoobiya markii la tagay boqortooyooyin adag oo markaa masiixi ah xagga ka jiray waxaa dhasheen imaaraad oo islaami ah baa dhasheen imaaraadka islaamiga oo dhasheen
waxay noqdeen kuwo iyagu toddoba ahaayeen laakiin toddobadoodu toddoba qolo oo midaysan maahayn waxayn dad kala jajaban aan saas macno weyn u lahayn boqortooyooyinkaas markaa xabashida oo buuraha ka jiraan ku xidhan legitimacy-gooda iyo inay boqorre yihiin iyo imaaraad inay yihiin mar walba legacy maxaa la sheegay legality-ga ka raadiya inay boqortooyadaasi ay aqoonsatay ahayd marka waxaa la gaadhay heerkii oo maaragtay Axmed Gurey islaamkii iyo masiixiga waa isku dhaceen 21 sano islaamku uu xoog lahaa waa la jabay markii la jabay taariikhda markaas aad ka hadlayso xilligaas bilaabanay dadkii Soomaalida ah oo islaamka ah oo buuraha tageen oo boqortooyadii markaa Itoobiya oo Abyssinia la dhihi jiray oo jirtay deemoobtay zoonahaas la dagaalayay waa laga adkaaday waa la soo riixay qoladii ay koonfur ka soo xigtay way soo riixday marka la imaanayo waamo laba veeg ama laba mawjadood oo waaweyn baa dalkan timid mawjada ugu horeysay mawjad laga yara xoog badan yahay oroma dadaan islaam ahayn maybe dad Soomaali oo islaam ahayn maybe oromo oo dadkan hadda booranta iyo wardayda iyo yaa deganaayeen moogtay deegaanka deganaayeen marka islaamnimadii waa la yimid magac baa la watay waxaa la dhihi jiray aji webiga waa laga shisheeyey saddex qarni iyo badh waxaa imaaday markaa mawjado cusub oo dihin oo Soomaali ah oo very aggressive ah moogtay oo maaragtay xoog u socda mawjadahaas xeerar baa la sameeyey soo garan xeerarka dadku waxay qabaan in lagu suubiyay baraawe meel agteeda oo la dhaho garaska Boorame xeerka markii la sameeyay oo xeerka dadka Soomaalida ee afka Soomaaliga ku hadla hal xeer loo suubiyay iyo dadku webiga soo gudbeen moogtay webiga la soo gudbay markaa kadib baa islaamku faafay dhulkan ku faafay qaabkaas baana lagu yimid lagu degay lagu socday soo garan marka waxaa jiri jiray boqorkii ugu horeeyay yaana dhihin boqorka anaga aanu kale aan aqaano oo magac leh oo la yaqaano waxa la dhihi jiray oo aan dadka webiga soo gudbay marka boqorka uu ahaa waxa la dhihi jiray Riino moogtay waxa la dhihi jiray Riino abaya hadda la islaamiyaa oo qabiilooyinka sheegto waxay dhan Axmed baa la dhahay moogtay laakiin waxa la dhihi jiray Riino moogtay marka waxaan u maleynaa waa irid weyn markaas meel ay wax ka bilowdaan baan ku sheegay hadhow haddii waqti la helo waan sarkeynaa marka bad kala la galaa markaa oo sidii loo socday dagaaladu si u socdeen meesha la gaaray dadka maartay abaandulayaalka ahaayeen ilaa ay halkee Soomaalidu gaadhay marka waxa waay Soomaalidu waxay gaadhay dhinacan hadda waqooyiga Kenya oo kale 6 Mooyaale Marsabit Sielo Mandera Wajeer Garis ingiriisku wuxuu go'aan gaaray qarnigii 20aad horaantiisii Soomaalida in la celiyo oo webigan oo taana ayna dhaafin moogtay oo halka lagu celiyo marka sidiiba hadda webigan taana lagu leeyahay oo Garis iyo zoonaheeda mara uu ka sokeeyaa moogtay xadka Soomaalidu oo 1 kiiloomitir 2 kiiloomitir buu ka sokeeyaa waxa loo diiday xataa inay ka cabaan webiga moogtay marka halka taariikh baa ka bilaabanayso taariikhda shaqo badan bay u baahan tahay hadaad rabto in oo Kenya dad ka imaatay Kenyan archives ka tagay documentation fara badan oo aan buug ahayn baa yaalo waxaa yaalo heshiisyo kaaba qabiilada oo maaragtay deegaanada deganaayeen lala galay baa jira waxaa kaloo jira hadaad rabto inta taariikhdii ka dambeysay waxaa jirta buug la Soomaali Peninsula moogtay oo Carabina ku qoran Faransiis ku qoran Talyaani ku qoran Ingiriis ku qoran way marka waxa way ciraan u roonadaan u maleynaa gabadha Soomaalida ahayd waa inaan u soo jeesto
walaalay su'aasha aad weydiisay su'aashaada su'aal aad iyo aad u fiican waaye horta waxay ila tahay marka laga hadlayo fasal erayga hadda ugu dhawaan kara wuxuu noqonaa qayb moogta hadduu sanadkii 2 qaybood yahay waa 2 qayb hadduu 3 qayb yahay uu qaybsan yahay waa 3 qaybood marka waxa waaye eraygu hadduu hirgalo oo qaabka loo isticmaalo oo dadku ogolaadaan rasmi noqonaa haddii erayo ka fiican la helo waa loo joogaa waan fiirinaynaa taas waxaan u maleynaa halkaasaan uga baxaa manhajka waan u soo socdaa dalka Soomaaliya waa jahwareersan yahay dalku sida uu dagaalka sokeeye u galay buu jahwareersan yahay manhaj ma leh midaysan inaga intii dalku uu burburin ka hor manhaj baan lahayn afka Soomaaliga waxa la bedelay afafka ajnabiga oo dhan waa la bedelay waxa loo bedelay afka Soomaaliga hal manhaj oo midaysan oo from dugsi hoose dugsi sare Soomaali ah oo hadaad uga baxdo boorame hadaad uga baxdo Kismaayo waxbarashadu ay isku hal tahay baa la lahaa wixii waa burburay manhajta qaar baa Yemen ah qaar baa Sacuudi ah waqti qaar baa Suudaan ah marka waxa loo baahan yahay waxa waaye in la sameeyo koow manhaj Soomaali ah in la soo celiyo meeshii manhajta Soomaalida lagu darsi jiray lagu diiwaan gali jiray lagaga shaqeyn jiray wali qalabkii iyo buugtii iyo wixii waa yaalaan oo markaa kadib waxbarashada lagu midayn lahaa marka hadda waxa waaye sida aan u kala daadsanahay oo dagaalku noo kala daadiyay yaa manhajkeenu noo kala daadsan yahay waxbarashadeenu u kala jeedaa waxaan rajaynayaa mustaqbalka soo socda waxyaabaha dawladaha hadda soo socda lagu xukumi doono waxa kamid ah inay manhajtaas mideeyaan oo dadka Soomaalida waxbarashadoodu ay noqoto mid isu eg jaamacad ilaa iyo dugsi hoose aad baa u mahadsantahay maaragtay